marka saddex dhiiga jiro qofka dumarka ka yimaado oo xaydka ah uu horeeyo iyo nifaaska iyo ustaxaadada saddexda dhiig maxay kala yihiin dhiiga koowaad waa dhiiga xaydka muxuu ku imaadaa wuxuu ku imaadaa dam dabiici yakhruj min qacri rahim biduuni sabab wala wilaada marka culimadu taariifinaya waxay dhahaan waa dhiig dabiici ah oo gabadha ku dhaco bishiiba hal mar ama laba mar si dabiici caafimaad ku imaado dhimasho aan umulna ku imaanin oo gabadha soo ku imaana marka wuxuu ku imaanaa aayadii waan si daba raacina yakhruj min bayna sulbi wa taraa'ib dhaba kalxanta gabadha waxa ku jira ukumo oo xana ku jirto dabarka ninkan waxa ku jira shahwa ku jirto ilaahay ugu talagalay bani aadamka meesha uu ka dhalanayo nudfa calaqa marka la leeyahay labadaas isu taga bani aadamka laga abuuraa xantii marka waxay bishii gabadha hal mar ama laba ay soo deynaysaa oo maxay soo fadhiisanaysaa riximka agtiisa minka waxa loo yaqaano agtiisa soo fadhiisanaysaa ama aaltaraha markay soo fadhiisto marka waxay sugaysaa falgal shahwadii ninka ay sugaysaa ama biyihii ninka oo marka halkaas marka uur iyo ilmo ay ka abuurmaan markay weyso way dilaacaysaa dilaacda waxaa ka dhalanaya xaydka dhiig nifaa xaydka ka dhalanaa gabadhii ku dhacay kaas marka xayd la yiraahdaa waana sida waa dhiig kulul oo maxay ahayd oo brown ah oo madow oo ka duwan dhiig maxay ahayd istaxaadada ah kuleena leh dabiicada gabadhana bedalaya mashaacirteeda bedalaya quraankana wuu sheegay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yas'alunaka 'anil mahiid qul huwa adan wa dhibaar fa'tazilu an-nisaa fil mahiid ka fogaada gabdhaha markii ay xaydka qabaan ama makaanka xaydka ka fogaada xilliga xaydka uu haayo macna gogol hala sameeynin hala tacaamulin firaash xuquuqdiisa hala sameeynin makaanka laftirkiisana ka fogo wala maxaydka master mimiya ama zamaana ma darfu makaana marka intaas la marka maxaa uu dhib badan yahay gabadha xanaaq far badan nervous far badan jajab far badan daal ay dareemayso neeftur far badan qof gabar basiib u qabtaa sida maxay ahayd local adkaysi badan yahay marka xaydkaas marka waa dhiiga sida dabiicda gabadha bishii ugu dhaco goormuu bilowdaa goormuu dhamaada Aisha xadiiska hadalkeedii atarkeedii 9 سنوات وكو بلوضا مركو سود الدقو وحونا الأمارة إلى 50 سنة عايشة لا حيد قبل 9 سنين ولا حيد بعد 50 سنة على الراجح سيدا أبدا محيهته وراجحة قبلها الضبيعي أهان حيد 9 سنة كهر إيمانها مجرو 50 سنة كدب حيد إيمانها أنت على الراجح سيدا أبدا marka 9 sano marka gabadha si fiican u korsan tahay nolol fiican oo maxay ahayd oo degan ay haysato waxa laga si fiican u qaan gaarto si fiican u korto oo 9 sano ugu yimaado ama hadii sida normalka 10 12 ilaa 12 14 iyo ugu imaada markuu soo daho duruuf adag hadba sida gabadha u barbaarto ay ku xiran tahay oo ama ugu soo degdegaa ama uu ka daaha marka wuxuu u dhaxeeyaa 9 sano ilaa 14 sano ilaa 15 sano iyo periodka rasmiga gabadha sida xaydka waqtigaas inta u dhaxayso ku yimaada waxayna ku xiran tahay hadba nolosheeda sida ay tahay sidoo kale inta waqtiga ka tagitaanka uu ka guuray caadada gabadha ay ka guurayso iyadana 50 sano 45 48 ilaa 50 intaas maxay ahaato iyadana intaas u dhaxeeya mar waa dhici kartaa in 40 sano haday gabadha duruuf adag ay maxay ama ku dhashay ama ku dhaqantay inuu dhaqso ay caadada ka guurto oo ay ka tagto waxay duruufta ku jirta awgeed marka iyadana waxay ku xiran tahay joogitaanka oo caadada ay daahayso ama ay soo degdegayso hadba nolosha gabadha ay ku xiran tahay marka muddada uu marka xaydka jiro waa muddadaas maalmaha marka sidoo ugu imaanaya muddadiisa xilliga ugu yar waxa waaye maalin iyo habeen يوم وليلة مالين iyo habeen yuu ku imaanaya ugu badnaana 2 usbuuc yuu ka soconaya marka maalin iyo habeen duu imaado 2 maalin ka socdo 28 maalin daahirta 3 bir haduu ka socdo 7 maalin daahirta 4 bir haduu ka socdo waxay daahirta 6 hadba intuu ka socdo marka waqtiga ugu badan waa 15 maalmood 15 maalmood ka socdo waxay daahirta 15 maalmood kan inta daahirta 10 bir haduu ka socdo 20 bir daahirta marka muddadan waa taas يوم وليلة ilaa 15 maalmood intaas uu ka soconaya dhiiga umusha asagana waa ku ahkaam asaga daqiiqada laga socdo ama maalin ka socdo sida maxay ahayd qaalibka 40 bari ama ilaa 60 bari u dhaxay culimada xadidaan laakiin maanta waxay ahayd horumarka adduunka iyo bani aadamka uu gaaray gabadhi wixii dhan waa laga nadiifin waxa laga yaabaa inuu 40 bari xataa uu gaarin ama 20 bari ama 15 bari ama 30 bari xataa ula dhaafin waqtigaas maxay ahayd uu ka soo gaabtay maxay ahayd aalaadka casriga ee gabadha looga umin la awgeed waqtiga tirada badwaagi hor uu ahaan jiro socon jiray inuu san gaarin baa dhici karto laakiin xilliga loo xadiday waa 40 ilaa 60 bari waa dhiiga umusha ah ee gabadha markay umusha uu imaanayo marka gabadha dhiiga xaydka ah iyo dhiiga umusha waa isku ahkaam wixii dhiiga xaydka la diiday dhiiga umushana gabadha waa laga diiday maxaa mamnuuc ka ah as-salaah shariicadu waa ka cafisay
الصوم أنت أوديك كسر شرعة وكعفس وح صلاة تكون سمجته ما نسوق الله ينسى صوم كسيدو كلا شرعة وكعفس مدة وإيمانايا أيضا سيدو كلا شرعة وكعفسي لكن وسوق الله ينسى صومك حجك محيط الضواف كلو دي دعم ماشي كلا أنت دوم يسمينسا نبي عايشة ممكن حياتك وإيمان حرم كده سبحان افعل كل شيء إلا الطواف أو طوافك قراءة القرآن علماء ويدي لكن مسألة خلافية واي أيضا الفراش نينك جوجل لما سمعين كان قبل ممكن حياتك وجه أما مش إتهاي الطلاق أيضا نكاحة لو ما لو ما سمع لو ما فوري كره أنت حياتك وكجوجا أنت مركب لباس ديك ولا ديجي ومش ديجي حياتك أو اسكو أحكامه waxaa jira dhiig kaleento oo gabdhaha ka imaado ka duwan oo loo yaqaan ustaxaada maxaa waa dhiig furan waa xidid dilaacay oo dhabarka ka dilaacay oo marka gabadhi ka imaanaya marka dhiiga waa dhiig nadiif sida qofka meel sakiin ka sarta camal oo kaleento uu ka duwan yahay dhiiga umusha xagga midabka iyo xagga maxay raa'ixada iyo dhiiga xaydkaaba waa dhiig nadiif oo kaliin ah laakiin xidid soo dilaacay xibinta tarankana ka imaanaya kaas marka gabadha jirta nabiga calayhi salaam uu imaado Faadima binti Qays in la jeclahay كتر يا رسول الله إنني استحاض مركا تدوسن وكسر على اليري وديك فرمايا ما أنت نمكي لباري داو لغو حلي والواي وقت يسعنا يا أما سنة أما لو سنة أما دور سنة مركا دموسك استاغا وحيد كديك كدم هذا مركا وحيد ديك فرمايا محان سمايا مركا سوق نيجي وحكو يري استعمال قف محيد قفين مرة استعمال هذا أما تنبوني أما أول واحد هذا استعمال حلق صلاة عبادات كتكنيسو حلق ديك حيد كأكوي مادنا salaada joojiyada marka gabadhaas dhiigga xeedkan waa ku dhacay dhiig furankan uu kala duwan yahay marka soo kala garana isku si uma kan waa soo dareera marka dhiig furan waa soo daadanaya kan kale laakiin dhiiggan kale inta quruur waa si kadis ugu imaanaya uu socona ma kala go'ay laakiin kan waa imaana waa joogsana kan waa imaana waa joogsana kan dhiig furanka waa oo marka kaas marka salaadeedu way tukanaysaa way soomaysaa cibaadaadkii dhan way qabanaysaa xeedka markii loo imaadana cibaadadu way joojinaysaa dhiigaas marka axkaam ninkeeduna waa la dhaqmi karaa gabadha ustaxaadada qabto waa dhiig furanka qabto marka gabdhaha qaar qabaan arkay gabdha qabo ii imaaday marka asaga axkaam waxay ahayd axkaam ahaan uu ka duwan yahay dhiiga umusha iyo dhiiga xaydka ah cibaadaadku way qabanaysaa gabadha dhiig furanka qabto ustaxaadada qabto xilliga xaydka dhiiga u imaadana way kala garanaysaa labada dhiig sunno ma ahan marka way joojinaysaa salaada way joojinaysaa saddexdaas dhiiga shariicada sheegtay oo gabdhaha khaas u ah inaa garataan marka maxay ahayd sida markuu ka go'o markuu dhamaanayo marka dhiig dhamaanayo waxa jirta calaamad la yiraahdo Caaisha la weydiiyay marka go'o maxay dhiig way u soo laba kacleena waqti ha degdegin adiga marka hore ha degdegin hubso inuu dhiigi ka dhamaaday ama umusha ha noqdo ama maxay ahayd xaydkii ha noqdo see ku garanay alqusal bayda ee sheegta Caaisha radhiyallahu anha qoyaan cad inuu imaado oo kaas markuu imaado maxan dhiigi waa dhamaaday waa ka tagay marka ama xaydkii